السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الملك استوجبتان كلنتي وعانو وناكسن ومركل أي برنامج كأني دود تضبط كا. habeennimadan caawa barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa goorma ayay aasaasantay dimuqraadiyadda Soomaaliland si hadda halkee bay maraysaa si gaar ah waxaynu ku falanqayn doonaa doorashadii ugu dambeysay ee 13kii bishan ka qabsantay guud ahaan Soomaaliland barnaamijkeena dooda toddobaadka caawna waxaynu ugu martida ay kala عبد الرحمن يوسف دعالة بوبي آدم جبريل هند محمد جامع مصطفى سعد دنبيل إيه وليبا قراء عبد الناصر سؤال شو قهريسا هدي عن كوب بلعبو بوبي يوسف دعالة سيدنا لو وضع صعنو شن مدحوينه أي ودن كان صوم مري أو كيو جدا بيجي كوبي لغتن كي بيشان إلا دورتي صدق كم إذا وحصاد دورتي شعب كسومالي لان لبدي كهرية قابل نوعي بالقصة دورت waxay la tahay intaynaan u imanin shanta madaxweyne Soomaaliland inaynu dib ugu yar noqono goboldig baa jiray oo wuxuu wax iska bilaabmay oo soo galistii dalka la soo galay la soo noqoshadii madaxbannaanida Soomaaliland ku bilaabmay ma ahayn halgankii hubaysnayd uu xoreynta qaran ayaa seeska u soo dhigay dimuqraadiyadda Soomaaliland ka jirta sidaas oo kale waxay tirsanaysaa marka laga soo bilaabo bishii April 1981kii ilaa 93kii oo shirweynihii Boorama la qabtay iyaduna 6 gudoomiye ayaa soo maray walibana aanu hadalka soo gaagaabinaya shirweynaha koowaad oo London ka dhacay kii labaad oo Nazareet ahaa kii saddexaad oo July 83kii Harar ahaa iyo kii afraad oo 6 August 84kii jigjigaha kii Siraanya lagu doortay iyo kii shanaad oo 87kii Harar ahaa intaaba gudoomiyaasha SNM cid isla soo taagtay madasha ma jirin nooca shirarka la qabto ee dimuqraadiyaddan aynu maanta ku naaloonayno saldhigga u ahaa ayaa waxay ahaayeen shirarku inay dibadda ka dhici jireen oo dibadda lagu soo kala hari jiray wixii go'aama lala soo gali jiray shirweynayaasha markhaati cad waxa ka ah oo idinku goobjoog u ahaydeen inta Soomaaliland lagu dhawaaqay shirkii Burco shirweynihii Burco iyo kii Boorame inta markaynu ka nimaadno laba goor mar waa tii Boorame lagu shiray oo 83kii bay ahayd 151 ergey baa fadhiyay oo golaha guurtida xilkii uu ka wareegay golihii dhexe SNM xilkii sharci dejintu golaha guurtidu u wareegay 151 ergey 8 ergey oo shir gudoonka ah oo aan cod lahayn iyo inta kale oo madasha fadhiday ayaa cigaal soo dooratay bishii February 22keedii meelahaas 79kii Hargeysa mar labaadkii ayaa cigaal la soo doortay 300 oo ergey oo guurtida ah oo si yar leecaysay dimuqraadiyadda oo markaas 8 shir gudoonka cod may bixineen markana 25 shir gudoona jiray 25 kuwa cod bay bixinayeen marka inta laga soo tago doorashooyinkii lagu galay codka dadweynaha 2003 2010kii iyo tan maanta ayaa israacay oo intuba iyagoo dimuqraadiyadda ka dab qaadanaya si dimuqraadiya u dhacay si nabadgelyo u dhacay oo la soo haneeyay waayo haddaan su'aal dhinaciisa siiyo aadan jibriil laftiisa waxaad safiir amaba wakiil Soomaaliya uga soo noqotay qaar ka mid ah wadamada caalamka in badanna waad ku nooleed dalalkaasi Soomaaliland doorashooyinka ka dhaca iyo waliba doorashooyinka caalamka farq intee leeg u dhaxeeya aad isleed waxay kaga duwan tahay Soomaaliland arrimaha soo socda kow waxa la soo maray marxalado kala duwan waqti walba xilka taagan ama challenge-ka markaa taagan in la gartabay ahayd waa la garanay ka soo qaad maxaan ku dhahaa shirweynihii Burco ee nabadda iyo dawlad dhiska waxa la gartay oo ama hoos ka timaado ama kor ka timaado hoos waxaan ka wadaa dadweynaha
ama kor ha ka timaado madaxda mar walba waxaan markaa la gartay nabad inaynu dhisno nabad haddaynu doonayno dhisno halkay ka bilaabmaysaa nabaddu dee nabaddu waxay ka bilaabmaysaa waxa la yidhaahdo dib u heshiisiin la-aanteed nabadii ma dhici karto challengekaas ama yacni xilkaa weyn baa halkaa aynu kaga soo baxno kii labaad wuxuu ahaa markaa maxaan ku dhaha cigaal la doortay dowlad baynu doonay nabaddu keligeed ma waari karto haddaan institution jirin haddaanay dowladi jirin ka soo baxay nabaddii si wanaagsan baynu dhisnay dib u heshiisiin bay ku bayskaraysan tahay weliba dib u heshiisiin keliya maaha dib u heshiisiin aan debadda waxba cidina kuu yeedhin debadda lacagi kaagama iman ra'yiga iyo lacagta intuba waxay ka imanayeen communitieska iyo dalkay ka imanayeen tii labaad waxay ahayd sidaynu dowladda u dhisnaa xaggay ka bilaabmaysaa dowladnimo waxay ka bilaabmaysaa war waxa la yidhaahdo hubka inaynu iska dhigno oo hubka aynu meel ku urino marka aynu ciidan dhisano dowladi ma dhismi karto haddaan hubka dhigis la samayn laakiin hubka dhigis keliya maaha sidee hubka loo dhigaya president cigaal wuxuu yidhi nimanka soomaalida ahee qoriga sita wakhti kastoo ay joogaan amar laguma dejin karo lama odhan karo hubka dhiga waa in ay noqotaa wax la yidhaahdo consensus wax la yidhaahdo laysla wada ogol yahay waa kii halkaa hargeysa khayriyadan u malaynay ahayd cigaal isugu yeedhay odayaashii qabaa'ilka u madaxda ahaa wuxuu yidhi waar hubka dhigis bay dowladdu ku xidhantahay inaynu samayno yaa u horeynaya oo dhigaya hubka sheegaya waana inaynu isla wafnaa suldaan maxamed suldaankii guudi carab ayaa yidhi annagaa ugu horeynayna oo dhigayna waa tii halkaa ka bilaabantay somalilan waxyaabaha ay kaga duwantay waxaa weeye mar walba xilka taagan baa la garanaya marka hore la xadiday dabeedna si wanaagsan loo abbaarayay taas oo weliba ah wax ka yimid dadka dhulka hadday ra'yiga tahay hadday tahay kharashka ta ay kaga duwan tahay oonu kaga duwanayn waa taa waxaasoo dhan waxaa ka weyn inaan dibadda waxba lagaaga yeedhin taasay dowladnimo ku dhibsan dimuqraadiyada markii aynu doonay inaynu dhisno waxaa la gartay oo fadligaana waxa iska lahaa madaxweyne cigaal waxaa la gartay in aan loo baahan yahay in caalamka lala mid noqdo dowlad dhisnay nabad dhisnay sidee baynu adduunku wax la yidhaahdo dimuqraadiyad buu ku socdaa oo cahdigaasaa la joogaa waxaynu u baahannahay inaynu axsaab dhisano ururo siyaasadeed bay ka bilaabantay in badan oo madaxdii snm ka mid ahayd way ka cagajiiday markii dambe waa la ysla ogolaaday markaa waxaa muhima oo aada iyo aada u muhima in la garto xilka loo baahan yahay caalamka sidaynu ognahay dimuqraadiyad hana qaaday oo meel casriya maraysa ayaa ka jirta dalkeena marka loo eegana waxaa jiro ina xidhaya diintii iyo dhaqankii haddaba somalilan sidee bay isugu keentaan ba isu waafajisay iyadoo dimuqraadiyadiina qayb ka soo xiganaysa habkii dhaqankii iyo weliba diintii waa sheeko dib ugu noqonaysaa xilliyadii lagu jiray halgankii hubaysnaa ee dib u xoreynta qaran ee snm horseed ka ahayd halgan dadweynuhu ahaa snm horseed unbay ahayd dadku siyaabo badan bay u dagaalameen ninba wixii hayay xeeladu yaqaanay ayuu ku dagaalamo nin waqti hore iyo nin hanti hore iyo nin nafta hore iyo nin wartabin hore iyo ninba waxba kusoo qofba waxba kusoo dagaalamay dumarkuna way ka qayb galeen marka waa sheeko halkaa ka soo bilaabantay dabeedna intii aanu halkan ku jirnay ayaa waxaanu xaqiiqsanay oo su-aal baanu isweydiinay ah marka aynu dalka xoreyno ma sidii gumaysigaa loo maamulayaa ma sidii maamuladii
lixdankii 69 ma sidii ka dambeysay sidee la yeelayaa dabeedna waxa la isla gartay in lagu mudo irbad ah dhaqanka oo maamulka dalka uu dhaqanku soo galo sidaas waxa la isla gartay markii la rogrogay la eegay inay guurtidu tahay waxa ugu mudan ee galaya meesha arintii aadan markaynu in yar ku noqono waxa weeye arinta ku tashiga dadka markastoo shir la qabanayo markastoo meel la isugu yimaado ahmiyadu waxay ahayd in laga xor yahay taakulayn dibadeed in ay madashu geed tahay waxa laga yaabaa dadkan dhalinyarada imika cusub hadii la weydiiyo madasha ugu wanaagsan waa maxay meel internet leh meel la seexdo leh meel biyo socdo leh meel gaadiid wanaagsan leh waxay kaas laakiin tii ahmiyadu ugu weyn ee Soomaaliland ku soo caanamaashay waxa weeye waa geedka waxa laga yaabaa in dadku u gartaan geedku inuu hadhuun leeyahay laakiin tii waa constituency-ga waxaan la yiraahdaa waa dadka oo halka shirarku markay Hargeysa ka dhacayaan waxa la oranayaa shirkii Hargeysa reer Hargeysa oo dhigtay taagayaan reer Boorama dhigtay taagayaan reer Burco dhigtay taagayaan reer Laascaanood dhigtay taagayaan waxay danaynayaan shirkani inaanu magac xumo deegaankooda u soo jiidin dabeedna aroor walba kala hayaan waxay ku oranayaan halku maraya waa arinta goob joogayaasha ma hadda iska fadhiyaan meesha marka nusaaca loo baxo waxay la falgalaan kuwa shirka burburinaya oo ay ka qabtaan oo yiraahdaan anaga maxumaan noo soo jeedin marka sheekada venue-ga la yiraahdo madasha la yiraahdaa siyaasay muhiim tahay taakulayntu siyaasay muhiim tahay shirar dibad lagu qabtay ma ahayn shirar taakulayn dibad ka sugayay ma ahayn shirar nin ajnabiya marti uga ah ajendaha shirka ma ahayn marti looga ma ahayn ka qaybgalayaasha qof ajnabiya horta sidaasay ku soo caanamaashay dabeedna dhaqanka iyadoo la wato ayaa la yiri ilbaxnimadii adduunyadana maxaynu ka qaadanaynaa maanta marxaladda aynu marayno waxaynu u baahanahay inaynu dib isu qiimayno golihii guurtidu wuu jiraa laakiin tii dee dhimashadiina way badatay dhaxaltooyadiina way badatay waxaynu u baahanahay inaynu dib boodhka uga tubno aynu isweydiino weli ma usii baahanahay maxaynu uga baahanahay waxaas sidee baynu u adeegsanaa iyo sidee baynu u soo xulanaa oo aan doorasho noqonayn ee noqonaysa in la soo magacaabo oo dadkan ilaa haddaynu imika nidhaahno waynu dooranaynaa dee socon mayso golihii baarlamankaa la dooranaya markaa baarlaman 162 suurtoobi mayse waxa weeye iyagu inay magacaabis ku yimaadaan markaa lama huraan bay ahayd waa hawl ku bilaabatay halgankii waa halka ay ka timid baadi socda gaarka ah ee ay dib u heshiisiinta iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland leedahay ee ay tahay in laga barto oo waliba kuwan ugu xigay ugu dhawey intay meel kale ka doonayaan ay ka bartaan ayaad badmaasantay waxaan siinayaa Hinde Maxamed Jaamac oo 2010 doorashadii madaxtinimada Soomaaliland madaxweynaha hadda xilkiisu sii dhamaanayo uu ku yimi markaana daahir yaala xukuumadda uu ka ahaa kaga guuleystay waqtigaasi commissionka shaqaalaha kamid ahay haddana doorashadani 13 November ka dhacday Soomaaliland ee ku soo baxay madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixi Cabdi goob joog baad u ahay labada doorasho maxaa kaaga baxay maxaa farqi u dhexeeyay Assalaamu calaykum habeen wanaagsan waxa weeye doorashadii 1910 iyo tan 2010 farq weyn baa u dhaxeeyay boobana de kamid baa ahaa dadkii aad iyo akademiyada iyo de aad tacabku uga galay may ahayn horta wax hawl yar waa ogeydeen iyadoo doorashadii lagu dhawaaqay baan haddana commissionskii bedelay oo noqotay commission cusub lagu dhawaaqo marka saddex meelood baan u kala saarayaa iyadoo historyga waynu ogno ku noqon mayno mid waxa weeye dadka maxaa u kordhay midna waxa weeye maxaa dawladnimada ka kordhay midna waxa weeye institutionka ama la yiraahdo maxay tahay commissionka qaranka maxaa u kordhay haddaynu kaga qaadno imika dadka dabarigi dadku wad ogeeyno doorashadu didib u dhacday waxa iska jiray issuesyo badan ay arrimo badan ay kamid ahaayeen maxaa laga yeelayaa ma aragtay serverka kale boobada uu ogaayay waxyaabo ay qoladana ku faa'iiday waxaanu anagu qornay bay ahayd oo lagu hawlgalay marka horta shicibka waxa uu ibaxday inkastoo laga idinka qaarid kamid halka fadhiyay inaydan hadda doontaan doorka hore coreyn ama ay yareydeen ama idan jooginba waxay ahayd really horta dadka reer Soomaaliland mar walba anigu markaa wadanka ku cusub waxaan aad iyo aad ugu farxi jiray ilaa iminkan aan ku farxa waxa weeye sida u fahmeen iyo horumarka soo gaadheen iyo muhiimka uu leedahay shicib ahaan
inay codeeyaan oo kuyuuga galaan oo samraan oo waliba isgacan qabtaan oo isu caqli celiyaan oo dadka jilicsan kabaan marka dadku aad iyo aad bay u koreen maalintii dhaweydna weydinkay arkayayo magaalada markuu commissionku amarka bixiyo yiri gawaariyaan la kaxaysan rabashiyaan la sameyn iyaga dawladina waxa qof kastaana uu dhageystay marka wax weyn oo aad u fiican oo lagu faano oo kolleyba de ku faanaynu aynu ognahay waxa inagu soo noqday sida international community-gu ama dadkii laynoo soo hambalyeynaya waxay ku tusaysaa guushaana shacibka keenay ta commissionka waxaad ogeydeen booba wuu ogaa anagu waan ogeyn waxa weeye xaalad adag baanu anagu markaa dhaxalnay aan dhaxalna waxaanu haysanay international community stronga oo nakabayay oo nala shaqaynaya oo xarunta nala joogay oo waaxyaha ay u kala duwan yihiin commissionku ilaa hawl culus ba operationka ama xafiiska dhexe ku dhacda ayaa nakabayo nala joogay oo kabeeyay haday tahay xagga xidhiidhinta haday tahay xagga tababarada imika halkii meesha institution bay noqoto saa warka haysan dhalinyaro idinkeedii la mid ah oo jaamacadaha wadanka ka baxday oo wadanka ku kortay oo wax ku baratay ayaa mid walba positionkan anigu ama boobe ama mid la mid hayay de qabtay taasina wax aad iyo aad loogu farxa umalayn maayo de inuu jiray qof laga soo duuliyay Mareykan oo la yiri orad xafiiska trainingka kab ama qof inta laga soo kaxeeyay meel la yiri orad soo tababar inaga wadana hawshana dhalinyaro idinkeeda la mid ah ayaana waday taasina waa horumar iyadoo waliba la sii adkeynayo institution la sameeyo ta dawladnimaduna waxa weeye sida dawladnimadu u shaqeysay sida u tustay lacagayowga berigii hore waxayna kabiyay European Unionka waxayna kabiyay maxay steering committee ba Nairobi joogay amarada bixinayay oranayay maxay idin ka maqan maxay idin ka dhiman maanta waxaan u maleynayaa lacagta inagaaba keensanay ta ugu badan taasina wax aad iyo aad loogu farxo marka faraqa sidaas iyo korniinka caynkaasa iyo horumarka caynkaasa ayaynu la nimi waana tahniyaduhu inoo ku imanayaan maaha because waynu kala saarnay dadkii tartamayay waxa weeye inaan kale inagu aamino inagu kala saarnay aad baad maasan tahay iminkana waxaan siin doonaa Mustafa sidaan la wada soconno waxa aad u dirteen guud ahaan gobolada Soomaaliland in ka badan 600 oo ah dadka goobjoogayaasha maxalliga ah warbixin baad soo saarteen maxay idin ka soo baxay doorashadii qabsoontay 13 bisha bismillah warun qorta taariikhdii odayaasha ayaa runtii aad ugu nuuxnuuxsaday dimuqraadiyadeennuna meel dheer bay ka soo bilaabantay nidaamka dimuqraadigiina marka laga yimaado xaq qarameedkii 2001 markii dastuurka loo codeeyay ayuu runtii dhagixii ugu horeeyay aynu dhignay doorashooyinkii baa ku xigay doorashadii ka dambeysay doorashadii 2010 laga soo bilaabo runtii bulshada rayidka ah ama non-state actorska waxa la yiraahdaana de korniinka dalkan buu kamid ahaayo waxay suurta gashay 2008 in platform loo sameeyo waxay markaa dhabarka u riteen hawsha baaxadda leh ee ah inay goobjoogayaal maxalli ah inay ku fidiyaan dhammaan gobolada Soomaaliland walow aanay wad sanduuq kasta aanay gaadhin 2010 marka laga bilaabo 2012 iyo 2017 tan maanta ah saddexda doorashada iyo diiwaan gelintii intaaba runtii goobjoogayaal maxalli bay ku lahaayeen bulshada rayidka marka goobjoogayaasha maxalliga ujeedada guud ee horta ka dambaysa waxa weeyaan in bulshadu ay doorashadeeda ilaaliso marka commissionka la eego commissionku isaga ka mas'uul technical sida doorashadu u dhacayso xisbiyaduna waa ku tartamayay marka sidee maalinba dimuqraadiyadeenu waxba ku soo biiriyay observers ba marka loo baahday observerski marka laba u kala baxaan local iyo international marka goobjoogayaasha internationalka iyo kuwa localki waa laba iskaaba inta badan kuwa localkiina way ka fara badan yihiin warbixintooduna way ka qoto dheertahay sababtoo ah iyagu sanduuqa kama dulkacaan halka kuwa internationalka ay wareegaan inta badanna marka qof international observer uu soo booqdo goob codbixineed cidda dhexdhexaadku wax weydiiyaa waa qofka local observerka waa ninka party agency-ga ama wakiilo ah xisbi warkiisu waa bias waa xisbigu meesha u fadhiya ninka commissionka meesha u fadhiyaana dee haddii hawshiisa wax laga weydiiyo waxa laga yaabaa inuu wax badan dahdaaho laakiin qofkan waa isaga mas'uuliyaddii baa saaran wax qurux badan buu isagu mar walba ku fikiraya laakiin qofkan waxba qarinahayn bulshadii ka socday wixii khaldanaa maanta meesha sheegaya
oo qofka local observerka marka waxaa noo suurto gashay haddaan tusaale usoo qaato doorashadan ugu dambeysay 620 goob jooge inaanu fidinno 620 ka midii waxay ahaayeen dadka laxaadkoodu kala dhiman yihiin waxaanay ka yimaadeen dhammaan ururada bulshada rayidka siday u dhan yihiin haween dhalinyaro ganacsato cuqaal waxaan idhaahdayey dadka laga tirada badan yahay waa dad bulshadii oo dhan isugu jira warbixin hordhaca baanu soo daynay 15 bisha maalin markii laga joogay maalintii codbixinta warbixintaas waxay ku qotantay warbixino ay isku soo gudbiyeen 600 qof waxay lahaayeen regional coordinators wax la yiraahdo regionadu si kala balaadhiin bay ku xidhnayd regionada qaar 4 qof oo regional coordinators bay lahaayeen qaar 2 bay lahaayeen qaar xabad bay lahaayeen xaggan xarunta Sonsaf server room baa jiray daatadu ay ku soo dhacaysay system runtii labadii doorasho hore marka loo dhigo aad uga horumarsan baanu isticmaalay oo basekiisu yahay SMS oo networkan caadiga ee sharaa'iga ku xidhan oo isagu internet basekiisu ahayn foomka markaa qofka goobjoogaha lagu tababaro wax kastoo meesha ka dhaca uu sheegay haddii qof goobjoogaha dibadda loo saaro haddii qof meesha lagu xidho haddii meesha delay jiro way soo sheegayeen warbixinii runtii aanu ku celinaynay waxyaalo badan baa laga faa'iidaystay oo habsami socodkii doorashada ka mid ah marka waxaanu isku warbixin hordhaca baanu soo daynay 15 bisha marka sidii goobjoogayaasheedu ay ka markhaati kaceen doorasho xora dhacday oo marka la eego miqyaaska lagu eego doorashooyinka waafaqsan waana ka markhaati kaceen warbixinteedina way ku jirtay maxaan idhaahdaaye 3 bilood ee ugu horeeya sanadkan 2018 ee soo socdana waxaanu soo saaraynaa warbixin dhammaystiran oo markaa wixii oo detail ay ku qoran yihiin cabdinaasir waxaad si weyn ula socotay doorashadan iyo waxyaabaha ay beesha caalamku amba dalalka kale kuwa jaarka iyo kuwa dibadda hadday noqonayso ay ka yiraahdeen maxaad ilaa intii doorashada kadib aad soo aragtay intii doorashadu ay socotay iyo inihii ka dambeeyay waxaan isku taxallujiyay in bal dunidu waxay ka tiraahdo doorashadeena soo aan isha soo wada mariyo marka runtii markii ugu horeysay waxaan diiwaangeliyay 42 institution oo joornaalo iyo website iyo TV caalami ah oo Soomaaliland doorashadeeda wax ka yiri marka aniga waxay ahayd markii ugu horeysay dunidu Soomaaliland arimaheeda ay isha saasoo kale ugu soo wada qabato waxyaabaha la yaabka lahaayeen aan arkeen waxa kamid ahaa dunida carabtu inta badan warbaahinteedu way iska indhatiri jirtay arimaha dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo doorashooyinkeeda juqraafi siyaasadeedka political geopoliticska Soomaaliland imika ay dhacdo iyo waqtigan maxay ahayd xasaasiga aan ku jirno ayaa isaguna wuxuu kaalin ka noqday in dunidu ay u fiirsato Soomaaliland siyaasadeeda waxa ka socda marka warbaahinta Soomaaliland wax ka qortay waxa kamid ah journalka weyn ee The Guardian la yiraahdo Horn Diplomat Daily Nation Associated Press Financial Times The Economist jirada la yiraahdo Bloomberg Washington Post France 24 TV-ga qaranka Faransiiska oo laantiisa afka Faransiiska ku hadasha iyo laantiisa afka Ingiriiska ku hadasha labadaba ay Soomaaliland doorashadeeda aad uga hadleen waxa kaloo BBC World Service-ka laanta la yiraahdaa si wanaagsan bay uga hadashay Press TV-ga Iran oo runtii geeska Afrika aad isha ugu haya bariga dhaxana wax badan ka siyaasadiisa ka lafagura ayaa isna Soomaaliland aad uga hadlay oo barnaamijyada ka sameeyay Al Jazeera Englishka iyo Carabiga labadaba way ka hadleen African News iyo ABC News waxaan VO-da way ka hadashay laanteeda afka Ingiriisiga iyo laanteeda afka Soomaaliguba samtrapun warbaahinta carabta ka hadashay waxa kamid ahaa al-mujtamac jirida la yiraahdo al-hayat jirida la yiraahdo yom 7 jirida la yiraahdo marka dhammaan guud ahaan warbixinihii laga qoray waxay ahaayeen qaar xasaasi ah walow aad moodaysay meelaha qaar warbaahin aan Soomaaliland wax ka qori jirin markay wax ka qortay inay magaca Soomaaliya inagu sheegayeen oo tusaale kale ay lahaayeen Kenya oo dimuqraadiyadda bariga Afrika laandheere u ahayd baa waxay lahaayeen ha ka barato sida la isku doorto
soomaaliya ha ka bartaan iyagoo uga jeeday somalilan waayo soomaaliya waxaan ognahay inaanay dimuqraadiyadii ka jirin marka guud ahaan waxaan u fahmay markii ugu horreysay ee isha joornaaladaas oo dhan iyo warbaahintaas dunidu ay isha ay ku qabatay ahaayeen waxyaabaha ay ammaanayeen ay nagu ammaanayeen markaan soo koobo waxaa ka mid ahaa haweenku siday siyaasadda uga qayb qaataan women political participationka xornimada saxaafadda maxaan idhahdaa iyo madax banaanideeda waxaa kaloo ka mid ah musharaxiinta tartamaya in tartanka ka hor fagaare la isugu keeno oo si xora wax loo weydiiyo iyaguna ay hadlaan taasi oo wax aad u wanaagsan ahay dhinaca dimuqraadiyadda maxaan idhahdaa guud ahaan waxyaabo kala duwan oo ay somalilan ku ammaaneen waxaasaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa dadku sida ay ugu heelan yihiin inay goobaha doorashooyinka tagaan oo bilmatal oo kale burco kale 8 iyo barkii habeenimo ayay dadku kuyada ku jireen hargeyso kale 3 iyo barkii habeenimo dadku taasina waxay muujinaysaa dadku sida yahuunta iyo dawladnimada dadku say ugu heelan yihiin ee ay diyaar ugu yihiin inay gacantooda ku bedelaan cidii ay doonayaan ama ku soo doortaan waxaan hadda siinayaa cismaan oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda golis isaga laftiisa bal waxa yaabaha uga baxay geed socodka Soomaaliland iyo waliba doorashooyinka oo tan ugu dambeysay 13 November ka dhacday Soomaaliland bismillah runtii dareenka ay ka dhawaajiyeen marti sharafto iyo aqoon-yahanadu imaad moodaa inaan aniguna aan ku dhowahay waxa la yaab leh duruufaha iyo xaaladda dalku ku jiro iyo waxa soo baxay ee soo baxayay ilaa bilowgii doorashooyinka mandiqadan aynu degannahay oo dhammaanteed xaalado aad u qalafsani ka jiraan haddaad xagga sawd ka eegto iyo koonfurta haddaad xagga yaman eegto haddaad xagga dhinac kastaad eegto xaalado aad og baa jira haddana somaliland ilaa iyo bilowgii xisbiyada ilaa iyo maanta maalin walba waxaa ka sii muuqanaysaa qaangaadhnimo iyo bisayl iyo horukac markii xisbiyada la asaasayay ugu horreysay 2001 dadkii hawshaa ku jira ururkii ugu horreeyay elays baanu asaasnay inagoo London joogna dadku way yaabaneen dad baan ugu oran jiray suurtagal maaha dalalkeena xisbiya kama samaysmi karaan qabaa'il baynu nahay mar haddaynu qabaa'il nahayna xisbiya ma dhici karaa dimuqraadiyadna ma samayn karo laakiin dhiirashadii uu madaxweynihii hore maxamed xaaji ibraahim cagaale naxariistay uu ku dhiiraday inuu dalka u hogaamiyo hanaanka xisbiyada ayaa waxay keentay outcome-ka ama maxsuulkan maanta ka soo baxay xaaladdan waxaa laga yaabaa haddii aan lagu dhiiran lahayn xisbiyada waqtigaa inaynu weli ku jiri lahaynuun shirbeeleed laakiin ku dhiirashaa keentay dabadeedna 2002 baa waxaa la tijaabiyey dowladii hoose dadaad moodayso dadaan weligoodba doorasho gelin baa 2002 doorasho galay markaasaan deere hirdeen 2 qof isjeedin yani dadku waxaa laga yaabaa inay 2017 kala yaaban yihiin 15 sano ka hor 2002 dowladii hoose oo weliba liis ah ururadii baa 7 urur baa mid walba wuxuu qadimay 25 xubnood oo golaha deegaanka Hargeysa 25 xubnood oo Burco 25 Boorama haddana la isma qaban waxba 3 urur baa xisbiga ka soo baxay halka 3 urur ee ugu sareeyay oo ahaa wadani bahalkii udub kulmiye iyo ucid afartii kalena waa hadheen waana aqbale si qurux badan bay aqbale waa sidii 2012 kale ay u kala hadheen ilaa maalinta laga soo bilaabo ilaa maanta maalin walba bisaylku uu sii kordhay waxay gaadhay waxaan weligeed natiijo adduunyada ka dhacday gaadhin 80 cod bay gaadhay 80 cod doorashadii 2003 dimuqraadiyadda cusub xaaladda cusub xisbiyada cusub ayaa waxay gaadhay codkii labadii madaxweyne daahir yaali iyo siilaan inay 80 weliba maran ku jiro markaasaa waxa tanaasulka iyo bisaylku keenay inta la aqbalo lagu wada shaqeeyo oo dabeedna doorasho dambe lagu sugo oo dabeedna marka runtii waxaan anagu arkaynay academic ahaan in aynu nahay dalal badan marka loo eego
inaynu ka horumarsannahay imika wadiga arkadee waddamadii ugu dimuqraadisanaaye xagga rule of law iyo sharciyadda ugu sarreysay Kenya xaaladda ilaa haddada waa tumurug taagan yahay innagana waxaad moodaa in horumar iyo bisayl iyo isu tanaasul iyo aqbalaad doorashada intaa dhacaysay ee aan laba qof feertamin laba qof feer isku dhufan yani waxaa la odhan karaa waa mucjiso wey mucjiso waana dadkaana mahadsan runtii dowladdu way dadaashay xisbiyaduna way dadaaleen musharaxiintu way dadaaleen laakiin dadweynuhu runtii iyagaa mudan abaalmarinta ugu sarreysa ee doorashadan iyo maxsuulka ka soo baxay aad baad mahadsan tahay boobe ayaan ku celin doonaa boobe maxaad is leedahay nidaamka dimuqraadiyadda amba doorashooyinka ka dhaca Somaliland waa ay ka baran karaan Afrika ama Soomaalida kaleba بسم الله الرحمن الرحيم أرد توجه رسالة هوي أرنتي إسكتشجع إني دتكو إسكتشدان أول إنه وحنا قبسنا إني أي واحد شرتي دورشوين كعش ما كسر شيكيني local government كا أي مدحويني هورا أي برلمان كا قلها وكيلا ده إن دقالها بقول كي بشني يلا أت وحين كاس اللوني شري إسكبحية أنت كلامنا دي كدارينا ما أنت واحد موجناي وأرنت لها شهوي إنه جد صعد كسد ودني هاي بيالنا إنه أما كيس إننا علىهين أباب الكيس إننا علىهين واتيه هندي كشيكين يسوي كده عيه كوميشن كده حديثة وده اللي يردني تاس فورس كي مركي أي هندي يشوجين ليش قيني ما شوجان وده سمورة رياضة شوجيو سو إنديا سفير كعبة يقدم بيسي مركا إسكتشجع أنت على ayaa laga baranayaa waxa laga baranayaa biseelka laga baranayaa waxa laga baranayaa dadweynahan xilkaaska ah walada xisaabtu waxa laga yaabaa marka la yiraahdo waa la banaan baxaya maanta waa orolihii maalin hiblaayo burca markaad eegto intii shalay kulmiyo u soo baxday intii shalay u cid u soo baxday intii shalay wadani u soo baxday ma soo baxaysa waxa laga yaabaa inaanay akhriyi karin qoladan siyaasiyiinta habeen walba waxay sugayaan Britain inoo soo baxay Britain tii baa soo baxaysa waayo dadka aad u bislaaday oo nabad doonaya dadka aad u bislaaday oo saddex xisbi oo xarkan saddex xisbi ay leeyihiin oo doonaya inay kursiga gaadhaan marka goldololooyinka yaryaraaya dhacay ka soko waxa laga baranayaa in Somaliland iyadoo inta la eg ay hanatay oo ay maamulatay doorashadeedii ammaankii hanatay taakulayntii hanatay logistics iyo wixii ku baxay hanatay kharashkii ku baxoo dhan hanatay farsamo ahaan iyadu maamulatay taasaa laga baranayaa oo hees Cabdi Qays lahaayo Hargeysa hadheelin hadhantaan weligaaba waxa ku jirtay cilmi dhawa Hargeysa horo dhiib Hargeysa Cabdi Qays markuu Hargeysa leeyahay Somaliland buu jeed aad ma santay aadan baa ku soo noqonayaa maadaama aad qaar kamid ah wadamada ay caalamka Somaliland wakiil uga hay doorashadii ugu dambeysay ee Somaliland 13 November ka dhacday maxay u soo jeedi kartaa Somaliland beesha caalamka indhaheedu maadaama ay Somaliland ay ka jeedeen oo aanay si wanaagsan aan u soo jirin Somaliland doorashadii ugu dambeysay ee madaxweynuhu ku soo baxay maxay u soo jeedi kartaa dimuqraadiyadda iyo beesha caalamka okay wax weyn bay soo jeedi kartaa waxa arrinka weynisa waxa weeye waxa leeyahay siyaasadda dibaddu waa waxa siyaasadda gudaha waa waxa gudaha ka dhaca ka qabsooma waxa muhiimkii waxa weeye in sidaa loo sheegay inaynu inagu halkaa gurigeenna aynu hagaajisanay aynu ilaa aakhirkii aynu dimuqraadiyad ka hadlayno iyo multi party system iyo free and fair election yani xalaal iyo xor aynu ka hadlayno oo gudaha ka dhacay dunidu markay taas weeye ta ay dunidu inagu qiimeynaysaa jaraa'idka hadda iminka laynoo sheegay waxay ay cabirayaan ama ay waxa weeye waa waxaa gudaha aynu ka qabsanay dadka dabaduse isugu keen wada mid maaha waxa jira waxa la oran karaa saddex qaybood baa loo qaybin karaa dawlado yani saaxiiba
wax wanaagsan in lala raba kuwo aad iyo aad inoo neceb oo aan jeclayn maxaan ku idhaahdaa somaliland inay soo baxdo oo ay wax noqoto iyo kuwo aan danka lahayn ama aan maxaan ku idhahdaa xiisayn ama ogeyn dowladaha aynu saaxiibka nahay oo tajribadeennan aad iyo aad u daneeya oo dimuqraadiyadeenna aad u daneeya oo inaynu tallaabo kastoo la qaado ku guulaysano waxaa ka mida etoobiya ka mida ingiriiska ka mida inkasta oo dadkeennu aanay taa fahamsanayn masalan markii 2000 maxaan ku idhaahdaa 12kii la bilaabay wadahadallada in la hirgeliyo dadkeennu iyo xitaa siyaasiyiintana qaarkood may fahmin ingiriisku halkaa inuu ka galay hawl weyn shirkii london oo lagu gooyey in ay somalilan iyo soomaaliya wada hadlaan halkaa waxaa ku dhammaaday sheegashadii ay sheeganayeen caalamku inuu dadafeeyo oo la yidhaaho yacni 50 dowladood ay isla ogolaadaan oo ay african union ku jirto igaad ku jirto la isla ogolaado soomaaliya iyo somalilan baa wada hadlaya taasi waxay ahayd meel caaqibo leh oo ingiriisku ay si waxa la ingiriisku meesha uu wuxuu ku daa ulbuu ku daa waxsaas oo kale ay si xarfad leh u dhigeen ilaa maantana inagaa marin habaabinay markaynu turki geynay anigu taa meelba waan ka sheegaa laakiin 50 dowladood ay qireen 50kii dowladood soomaaliya iyo somaliland inay wada hadlaan waxay ahayd meel weyn oo aynu ka dhaqaaqi karro oo muran badan inaga jeedisay maanta waa arkayseen sida cid waliba ay inoo tahnidayso ay u eegaysay waa waxa aynu halkaa ka qabsanay gudaha waxaynu ka qabsanay weeye maaha wax hadoofa oo been laga sheegayo oo la suba salaaxayo waxay xaqiiqo jirta oo dad kale ay qabsadeen caalamkuna uu si wanaagsan uga soo jawaabay hadda ma santahay booba maxay ku daraysataa markaynu ka soo bilowno 1991kii oo aynu la soo noqonnay madax bannaanida intaa ixtiraaf baa la raadinayay waxa la isticmaalayay ereyga raadinta dabeedna niman baa tigadha intay goostaan yidhahdeen ixtiraafkii aan soo raadinaynaa oo sii socdaan way soo socdaan ixtiraafkii ma sidaan 27 sannadood wixii tigidhi naga baxay iyo wixii dhoof iyo kadeedina soo maray kafadaa marka la saaro kafadaana la saaro doorashadii aynu bishii 13keedii qabsanay oo inagu aynu u jeednay xilligii madaxweynaha gaadhay in badanna waa la korkordhiyey faralkaa iska rida u naga ahay ayaa waxaa ka soo baxay waxaynaan suurayn karin oo ah inagoon qofna diranin cidna odhan ictiraaf noo doono tooshkii qaado halkan inta laynoogu yimaado inankaasi wixii uu akhriyayey raalliga hadal magacaaga cabdinaasir wixii liiskii uu inoo akhriyayey iyo waxaynu idaacadaha ka dhegaysanayno marka sidaa uu aadan sheegay siyaasadda arrimaha dibaddu waa muraayad reflect garaynaysa wixii gudaha ka dhacayay darsi baynu ka baranaynaa ah ictiraafka inaan la raadin ee ictiraafka la samaysto dabeedna sidaasaa laynoo soo eegayaa haddii layna soo yar eegi waayo dee waabaynu samaysano tusaale kale oo doorashadan la mid ah ayuun baynu soo dhigaynaa inuu adduunka u bandhigaynaa haddaynu doonno markaa raadinta intaynu iska dayno samayn iyo iibgeyn aynu isticmaalno wax kasta oo positive wanaagsan haddii la sheego waxaa jira dhinac kale oo yani opposite-ka ah had iyo jeer waxaa la yidhaha saynisku waxa weeye isbarbardhig ayaa lagu gartaa dhallinyarada iminka aan ula jeedo khaasatan inay fahmaan waxa weeye boobe wuxuu yidhi waa waxaynu inagu leenahay ayaynu caalamka tusnay inaynu wax aynu leenahay inagu aynu dhisannay waxaa jira mid barbar socotaabaa jirta oo ah xaaladaha fashilmay oo ay ka mid yihiin ay ahayd inay dhistaan wax dhistaan oo caalamku uu ku shubay lacag ciiddaa ka badan
oo balaayiin dollar ah oo afghanistan ka mid tahay oo ay ka mid tahay ciraaq oo ay soomaaliyada dariskeenii ay ka mid tahay inta bilyan oo lacaga lagu shubay maxay u guulaysan waayeen iminka afghanistan hadda iminka la leeyahay ciidamo kale ha la keeno maxay u guulaysan waayeen waxay u guulaysan waayeen aniga dee ra'yiga waxa weeye waxay la guulaysan layihiin number 1 fikrada iyo lacagta waxba dibadda laga keenay waxay la guulaysan layihiin waxa weeye wax aan hoosta ka soo dhismin inaga waxaynu hoostan way ka soo dhismeen dushana way ka dhismeen marka way isbuuxisay wax la yiraahdo hybridity isku talaal dhaqankeennii aynu hadda ka hadalnay iyo kan modernka ahoo maxaan ku rahaa aynu isku talaalay isku talaalkaas waa wax dunida iminka oo ay Soomaaliland ay tahay example ifaya oo aad iyo aad u soo jiitay dunida maalmo dhaweydoo laga hadlayay arrinkii doorashadeena Addis Ababa oo qolo institute reportkii laga qoray maxaan ku rahdaa la akhriyay ayaan sheegay waxaan ku iri tajaaribta waxay la najixi waayeen because waxa weeye lacagta dabadda laga keenaa corruption bay keentaa nin baa ka hadlay Swedish oo wuxuu yiri wixii lacag Soomaaliya lagu guraayay wax mid kale dhashay corruption and more corruption buu yiri waa khatar lacagaadan adigu shaqaysan oo dhididkaaga ahayn haday ku soo gasho waxa weeye adigu bay ku soo noqonaysaa oo ay ku dilaysaa ku baabiinaysaa waxaynu ilaahay ugu madnaqaynaa inaynu inagu kaga duwanahay arrimahaas oo kale oo ajnabi gacan shisheeye iminka intaasoo gacmood baa ku jira Afghanistan ku jira meel walba ku jira maxaan ku rahdaa dilaaliin maxaan ku rahaa kuwa ciidamo keenaya sharikado maxaan ku rahaa security-ga waxaasoo dhan baynu ka nabad galnay halkii ay u dhimatay baa laga tagayo maanta badankeedii waxa baan anigu islahaa madaxweynaha yiri tartami maayo mar dambe Afrikaanka inuu lahaa baan anigu islaahay runtii qodob aad u muhiim ah maalintii doorashadeenu dhacday isla maalinta Zimbabwe waxa ka dhacay arrin la mid ah Robert Mugabe 37 sanadood madaxweynaha ayaa askartu xoog kaga qaaday maalinteedana Axmed Seelaan 7 sanadood madaxweynaha ayay ka dhamaato yiri anigu intaan ka badan ma rabo talafteedu waxaan iga ila tahay waxaynu dheernahay dunidii kale raggii kale ee Afrika joogay hadduu doono 120 ha gaadhay wuxuu oranayaa anigu tagiba maayo runtii waa credit leadership-keena ama qiyaadada hogaaminta dalku ay leedahay sidoo kale waxa le madaxweynaha ka horeeyay doorashada qabtay Daahir Riyaale isaguna inta laga helay haniyay xilkiisa quruxda badan u wareejiyay sunnahaasi waa sunno qurux badan oo mudan isaguna in uu casharo u noqdo wadamada kale ee dunida 129 wadan ee dunida waxa laga yaabaa gabigoodba 30 inay dimuqraadiga yihiin 160 kale aan nidaamkuba isbedelin 7 ka iyo 5 ka iyo 25 ka miran ay fadhiyaan oo dadna ninku markuu dhintana inantiisa ku wareejiyo ama xaaskiisa ku wareejiyo ama inankiisa uu ku wareejiyo dabadeedna taasi ay keento hadhowto qofku inuu dal kaba naco marka awowgii iyo inankiisa iyo kii sida North Korea 4 generation ay marayaan wixii waa macna beelaysaa runtii iyaguna waxa mudan oo laga baran karaa oo dunida kalena ka baran kartaa isbedelka ay ogol yihiin hogaamiyayaashin ama ha laga helo ama iskii haw tanaasulay in uu xukunka aanu maraboob ku noqon aad baad maasan tahay dhalinyaradii jaamacadaha ayaa halkan inoo jooga kuwa siyaasadda bartay iyo kuwa kale waxaan jeclaan lahaa bal iyaguna fikirkooda waxay hayaan ugu soo biiriyaan haddii ay su'aalo qabaan kolley dee inta hadalka badankiisii waa tirahdeen waxaan ku darayaa dee kolley waxa weeyaan waa markii koowaad Soomaaliland ay ka dhacdo
doorasho Irish technology ay ugu magac dareen oo ah in ama Afrikaba ay ugu magac dareen qofku hadduu mar kaarka qaato marka labaad oo indha inta laga qaado sheegayo taa lafteeduna dadtaydii meeshii koowaad ee caalamka lagu tijaabiyo oo in guul kaga gaadhno dee meelo kale marka caalamka la odhanayo in systemka raaca Soomaaliland ma ku guuleysatay taa inagu aynu example nahay taas horta aan ku darlaa in dee nidaamkan doorashada Soomaaliland ka dhacay iyo dimuqraadiyaddan ba horta dee steps badan bay soo mareen oo ay ka soo gudubnay intaana aqoonyahanka hore u soo yidhi baan kaga baxaya in teeda cajiibka ay imika saa doorashada marka saa u eegto laga hadlayo waxa weeyaan in candidates-ki u tartamayay ay loo qabtay debate ama dood in technology-ga indhaha qofku laba jeer hadduu soo noqdo sheegaya in madaxweynihii talada hayay uu ka tanaasulay oo uu doonayo in uu dadka kale jaaniskiisa siiyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay guulayaan in caalamka aynu kaga iibgeyn karayno horta doorashadu dee waqtiyo fara badan bay kasoo gudubtay nidaam beeleed bay soo martay waxay soo martay doorasho ahayd anigu local aan idhaahdo xilli maaragtay dadku ay 10 jeer codaynayaan maanta si alxamdulillah waxaynu maraynaa one man one vote wax la yidhaahdo oo indhaha caalamkana soo jiidata tu kalena mahadcelin baan wadaayo malaha haddii aynaan 60kii jabi lahayn maynaan kacnayn oo ninka kufay baa ugu orod badan baa lidhi mar baynu kufnay maanta waxay taasi cadaynaysaa wax kasta inaad halkii aad ku kuftay aad ka taxadirto haddayna 60kii kufi lahayn baa ayaan leeyahay midna waxaan u mahad celinayaa jabhaddii SNM ama mujaahidiintii SNM oo iyadu habka dimuqraadiyadda maanta aan ku socono iyo bisaylka ummadda la bartay waayo maanta haddii aynay SNM wareejin lahayn maamulka ama governmentiga dawladda oo ina nidaam dimuqraadiyad ku wareejin lahayn oo jabhadu iskaga dambayn lahayd uma malayn lahayn waayo weli lama hayo meel intuu nin jabhada qabsaday uu sii daayay yiri dadkaan maaragtay aad baan markaa jabhadana ugu mahadnaqay anu mid baan ku darlaa waxa weeye Soomaaliland doorasho runtii qurux badan bay qabsatay Afrikana mucjisay ku tahay wadan Afrikaana oo la aqoonsanayn oo runtii muddo 27 sano jiray oo madaxweynihii shanaad lagu wareejinayo runtii oo mucjiso isla markaana sidoo professorku xusay madaxweyne aan tartamaynin inuu doorasho madaxtinimo qabto runtii Soomaaliland marka laga hadlayo wadanka horumarkiisa developmentka marka laga hadlayo waa one indicator tilmaamaya inuu wadankaas horumar gaaray ay ka mid tahay inuu qabsado doorashooyin xor oo xalaal ah laakiin Soomaaliland waxa uu yaalaa runtii hawlo balbalaaran oo intaas ka baaxad weyn runtii message baan jeclaan lahaa inaan halkan ka diro madaxweynaha runtii la doortay Muuse Biixi Cabdi runtii waxaanu nahay bulsho qabaayil ka kooban inkastoo ay lahaa doorashada Soomaaliland waa clan based election isla markaana runtii waxaan taana kaga bixi karnaa in dadkeena wax barno oo runtii aynu dadka aqoontooda kor u qaadno macno uma sameynayso bulshada ama qabiil iminka tusaale ahaan uu jifan ka soo jeeda reer baan ka soo jeeda in hal wasiir la magacaabo iyo in laba wasiir la magacaabo saddex wasiir la magacaabo runtii waxaan jeclaan lahayn in bulshada la hor keeno dad hawlkar ah oo shaqadooda ka soo baxa isla markaana Soomaaliland magaceeda iyo sumcadeeda meel gaarsiin karaya shaqadii loo igmadana say tahay uga soo baxaya inta komanka laga yimaado waxaan hal su'aal inaan weydiiyo marka Afrika laga tago Afrika waynu garanay waxaan ka baran karno laakiin ma jirtaa waxyaabo aynu kala mideysanahay caalamka siyaasadeena ay kala mideysan tahay ama ay oran karaan maanta Soomaaliland iyadoo wadan aan la ictiraafin ah haddana waxyaabahaas ay wadamada caalamka la ictiraafsan yahay ay kala wadaagtaa siyaasadeedu ama doorashadeedu qabka u dhigmayso runtii waa wax anagana quseeyo oo na taabanaya doorashadana waxay ahayd doorasho Soomaaliland tii ugu horeysay bay ahayd nooceedana kale ee geeska Afrikaba ka dhacday ayaan oran karaa runtii waxaan sameynay wax badan oo dunidu ay nagaga dayan karto waxani maaha wax imika bilaabmay maaha haddaan xasuusano 2001dii markii dastuurkeena loo codeeyay
ilaahay ha u naxariistee madaxweynaheenii cigaal markii uu geeriyooday wakhtigu umuu saamaxeen wax badan inuu ogaado 2002 markii uu madaxweynuhu dhintay haddana 2003 waa inagii soo dooranay madaxweyne waa inagii soo dooranay nidaamka haddana waxay noogu xigay 2005 baarlamaanka oo lower house iyo upper house golihii guurtida iyo golihii baarlamaanka sidaas bay waxaynu quruxda badan bay u soo socdeen isku tanaasul kala dambeyn jacayl iyo turaale laga leeyahay dalka Somaliland ma laha reer ma laha wad shacab tashaday oo isku mowqif ah oo aragti iyo ujeedo midaysan leh inanka ku dhashay buuhoodla ku dhashay iyo inanka boorama ku dhashay iyo inanka daami ku dhashay waxay xaq u leeyihiin in Somaliland ay position isku mid ah ka helaan waayo waa muwaadiniin reer Somaliland qofna qof kama sareeyo shacabka Somaliland way guuleysanayaan haddii aynu saxno waxyaabo yaryar oo khaladaad oo inaga gudaheena jira oo ay ka mid tahay inaan siyaasadda dumarka aan inta badan aan la siinin roolkooda aan la siinin oo darkiisa baarlamaankeenii hal qof oo dumar oo fadhiya waxaasoo dhan dunidu way eegaysaa raydka dumarka in la ilaaliyo oo la ilaaliyo dadka minority aan lagu oran waa minority Somaliland ma jiro wax minority la yiraahdaa Somaliland dadka ku nool waa wada walaalo way siman yihiin waa isku mid wax barashada waa u free siyaasadda waa u free heer waxaan gaari doonaa insha Allah dumarku ay madaxweynayaal noqdaan Somaliland markaas buu iman karaa ictiraafka aan doonayno ee inaga dhabta inaga go'an horta hal qodob baan kulligaan ilownan aniga baba kulliba aad ugu farxi lahayn waxa weeye on anigana su'aasha la weydiiyay waxay ahayd doorashadii hore maxay kaga duwantahay waxay kaga duwantahay meelo aan weligeed calanka Soomaaliland laga ruxin meelo aan weligeed sanaaduuq la geyn meelo aan weligeed saddex xisbi la kala raacin ayay maanta doorashadani gaadho aad baan soo liyaysanaagna ugu hambalyeynayna sida ay meel walba uga gaadhay su'aasha inantu waxay tiri maxaynu kala midnahay Afrika way inaga iminka ka hadlayno meelaha sideenoo kale civil war soo maray hadday Rwanda tahay hadday Liberia tahay horta Rwanda deyn kastoo la yiraahdo wax fiican buu qabtay wali madaxweynihii baa ku fadhiya Burundi oo ku xigta waa dhibaataysan tahay maxay tahay Liberia oo intay gabadh doorteen iminka everywhere horta Afrika maanta waxaan isleeyahay haddii xaqa Ilaahay la eegayo inaku Afrika waynu ka mudnayso carabahana de waaba ogtihiin oo boqortooyo adduun baa haysta inagu dadka aynu meel isugu dhownaynu sigsanayna waxa weeye waa Europe waa meelo Asia kamida iyo America way garatay waxa weeye doorashooyinkan sidan oo kale meelahaas un bay ka dhacaan one food madwan systemkii aad arkaysay lagu kala baxaa xitaa waa ogtihiin iminka systemka iminka inkastoo kii horena laynagu tijaabiyay kana tijaabo yahay oo la eegayo de wadan yar la eegayo jecelahay in sidoo Mustafa ka hadlayay in la adkeeyo wax laga barto laakiin inagu waxaynu la midnahay aynu maanta la midnahay dunida aynu ka hadlaynay hore u martay hadday tahay Europe iyo hadday tahay America Afrika iyo wadamada Asia badankoodaba inagu maanta waxaynu tusnaa waynu kaga horeynaa laakiin aad iyo aad waxa muhiim u ah si halkaynu where we go from here maxaynu kaga sii gudbaynaa halkaynu tagaynaa sidaynu wixii challenge-geena uga faa'iideynayna oo insha Allah u taala madaxweynaha cusub wixii kalena aynu ugu faanaynaa u sii wahaynay institutions commission-ka kale u baahan yahay la sii kabo hay'aduhu ka hadlay u baahan yahay la sii kabo waxa kale u baahan in aad iyo aad loo sii kabo laga hadlo waxa weeye dadkeenan maalin walba la rarayo dadkeenan marba meel ka codaynaya lacagta inaga baxday waxaan u maleynayaa sistemo badan bay noo iibin lahayd oo taana runtii aad iyo aad looga faa'iideysto aad ma maasanta waxyaroo waxaynu in badan ku raagnay oo ka sheekaynay doorashadii iyo dimuqraadiyadda Somaliland waxa laga yaabaa qaar badan oo inay daawanaya dadina jecel iyo dadina nacab inay isweydiiyaan oo yiraahdaan miyaa waxba ka xumaanin marka doorashadu dalcadeed iyo nasladeeda oo ilahay marka iyaga qudhooda wixii taban ee ka soo baxay doorashadii dimuqraadiyadeennaba iyaduna waa duruusiin oo taala inaynu wax ka baranno haddaynu tusaalayaal soo qaadano intaanay inagu odhanba kuwayna nacabin waxaa ka mid ah kharashkii baxay intuu leekaa waa mid taban oo la socda waxaa ka mid ah hirarkii qabyaaladeed ama reereed ee dhex maaxayay ololayaashu iyaguna waa mid kale oo aynu u baahannahay inaynu iska reebno mid kale oo ay tahay inaynu ka kornaa waxa weeye dhalanka axsaabta halkan inan baa waxay ka dhawaajisay kaalintii dumarka la soo dooranayo maalin shanaadii waa waxaan booqday xaafadda Maxamuud Haybe gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed ee la soo doortay Hargeysa laga doortay 63 local government-ka loo doortay
caasho omar ursamaa la yidhaha way nooshahay waa cimri laakiin tii xisbigii SDU-da ayay ka soo baxday iyadoo local government ka fadhiistay guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada laakiin tii maxay ahayd dee campaignka iyadu may gelinsan iminka loo galo xisbigaa campaignka galay xisbi xubnihiisu registered yihiin subscription bixiyaan xisbigu amro oo qofka la dooranayo isagu goobta intuu dhigo yidhaahdo qofkaasaa xisbigan u sharaxan marka waxaynu u baahan nahay inaynu dhalanka iyo baadisocda iyo nolosha axsaabteenna inaynu hagaajinno oo hufno oo aynu gaadhno heer xisbigu uu yeesho xubno ka tirsan oo registered oo subscription bixiya oo go-aankeeda leh marka taana waynu higsanaynaa waana mahadsantihiin cismaan ayaan imika u dhiibayaa waxaad ku daraysid dunida dimuqraadiyaddeennu iyo doorashooyinkeennu maxay kala mid yihiin runtii waxaan isleeyahay waxaa la odhan karaa waa kuwa ugu quruxda badan bay ku jiraan meelo badan baan tegay soo maray ama Europe ama North America ama ereyadaas meel quruxda way ka shabahaan aad bay uga shabahaan waxay ka shabahaan biseylka dadka codaynta discipliinka intaba markaad aragto way runtii way ka shabahaan Africa malahay uun Ghana iyo South Africa iyo South Africa lafteedu mararka qaar booqdo waxaad moodaa inay runtii tusaalanahay waddamadii weligood bay intaa jiray inay tusaale u nahay doorashadii sanadkii hore dhacday 2016 waxaan ka qayb galay doorashadii Mareykanka anigoo observer waxaan tegay Washington baan ka degay 4tii bisha New Yorkna waxaan joogay 8 afar gobol oo u dhaxeeya ayaan markaa team baan ahayn oo la sii mariyay oo afarta gobol ee u dhaxeeya waxa ka mid ahaa Pennsylvania New Jersey afar gobol oo saasan raaliyada xitaa laba raali ba xitaa nala tusay waxyaalaha runtii cajiibka Somaliland bulshada oo dhan ay kula yaabtay waxa ka mid meelaha ugu badan kumanaan inaga 100 kun halkiis ku soo baxayeen kumanaan baa iyaga isku soo bax dadku campaign kaba ma oga wala shaqo tagaya maalinta electionku waa working day caadiya ay ahayd maalintii 8 bisha dad baa xafiisyada tagay dad baa early sii food gareeyay xitaa inagu ma aragtay si inuu weyneynay doorashada xitaa dhulkaasi anigu aan soo arkay aad buu may weyneynin marka runtii anigu waxaan oran karaa xitaa maalintii doorashada New York baan markaa joogno labadii qof ee markaa tartamayay bay ku sugnaayeen waxaan markii hore ku horeynay Hillary Clinton meeshii ay ahayd inay ka khudbayso oo aqal weyn oo Lafayette Center la yiraahdo oo quraarada runtii ay ugala jeeday in la helo woman president glass ceiling glass bay naga xigabay khudbadeeda ku jiray marka aqal dhakadiisu ay quraaro tahay ay ugu tala gashay inay maalinta ka khudbayso victory speech-keeda oo aad u weyn Donald Trumpna hotel la yiraahdo Hilton oo kulay magaalada New York cidii aragtay waa magaalo booming oo dariiqaduna yar yihiin oo meel weyn ba aan ahayn ba isagana uu joogay ay joogeen taageerayaashiisa markii dambe uu ka khudbayn doona laakiin Trump Tower oo xoogaa u jira ayuu joogay meeshan shaashadaha waaweyn ku yaalaan ee Wall Street la yiraahdo ay dadku markaa isugu soo baxeen dadka badankoodu fadhiyay waxyaalo runtii mucjisaaba ku dhacay New York waa magaaladii labadaba laga soo doortay dee 80% waxay filayeen inay iyadu madaxweyne noqoto markii graafku bilaabmay projectionkii la sameeyo gobolba gobol graafkiisu kor u dhaqaaqayadana ay meel istaageen dadkii xabad bay u siibteen meeshii waxaan ku leeyahay markii lagu dhawaaqi doono cidimay joogin iyaga laftooda xaalad aad u qallafsan baa runtii dee soo martay marka inagana dee weyn arkaynay doorashadii inuu galay marka runtii anigu waxaan oran karaa waa doorasho aan ag dhigi karo wadamada dimuqraadiyadda ugu horeeya Afrika shaqadeeda bay naga laad iyada marka runtii hawl aad u fiican baynu qabanay dadkaana ku mahadsan runtii sidii Cismaan yiri ma hadda ugu weyn dadka leh ma hadda labaad waxa leh commissionka doorashooyinka runtii hawl aad u weyn bay qabteen anigu sidaan qabo muddaanu anigu la shaqeynay commissionka doorashooyinka hindi waa ka soo shaqeynaysay institutionkaasi horumar buu sameeyay sidii hindi sheegtay horumarka uu sameeyay waxa kamid ah in maanta waxa la yaalo waxa resource isticmaalayeen ay local tahay not only lacag xitaa human resource inay local wada noqdeen inay fuliyeen mid kamid ah doorashadii ugu adkayd oo buuda inta la register gareeyo dhammaan goboladii oo dhan oo waliba meelaha aynaan gaadhin la gaarsiiyo iyaguna runtii hawl aad u muhiim ah ay qabteen marka runtii
waxaanan rajaynayaa doorashooyin ka dambeeyaan inay kasii qurux badnaan aad doonaan baad mahadsan tahay guntii gabagabadii bay soo gaadhnay balse booba ayaan hal su-aal siin lahaa tii ugu dambeysay ah sideen la wada soconno waqtigii ololaha lagu jiray ee doorashada bulshadii aad bay u kala tagtay sidee baad isleedahay bulshadii dib bay ugu midoobi kartaa horta dee wax dhabahoo dhulka yaallo oo la taaban karo xaqiiqo ay ku kala tegeen ma jira waxay ku kala tegeen uun ilaa markii hore way wada joogeen marka aniga waxay la tahay kow hoggaanka cusub ee dhismay waa mas-uuliyad saaran in aanu sii soconin kala qaybsanaantaasi inaanay sii soconin laba waa inaynu innaguna xaqiiqsanaa nolosheenna iyo wada jirkeenna iyo wada jooggeennu inuu ku jiro iyo guusheennuba waayo markaynu leenahay guusheenna inaynu wada guulaysanaa muhiima cid gaar u guulaysan kartaa iyo cid gaar u guuldarraysan kartaa ma jirto marka aniga waxay la tahay laba xil midna hoggaanku saaran yahay cusub ee dhismaya iyo ciddii buu helisaa midna innaga ayuu ina saaran yahay oo sidii aynu isu beer xaadhan lahayn aynu dib saaxadda ugu soo noqon lahayn ayaa inoo taalla daawadayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii dooda toddobaadka oo idinkaga imanaya stuudiyaha aan ku leenahay magaalada hargeysa ee telefishinka caalamiga ah ee universal runtii waxaan u mahad celinayaa marti sharafta kala duwan ee barnaamijkani nagala qayb qaadatay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhanka farsamada iyo agaasime maxamed caabi digaale barnaamijka intii uu socday waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo xamde xaaji agtoobara iyo weliba cabdirashiid cabdiwahaab tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu